madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u magacaabay taliyaha ciidanka booliiska Sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Maxamuud Dabagale oo 20 sanadood ugu dambeeyay isagu kamid ahaa ciidamada militariga Somaliland. Sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Maxamuud Dabagale waxa uu kamid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidamada qaranka Somaliland. bilowgii dhismaha ciidanka qaranka Somaliland intii u dhaxaysay sanadihii 1994 ilaa 1999 waxa uu noqday taliyaha ururka koobaad ee guutada koobaad ee ciidamada qaranka. labadii sano ee xilligaas ku xigay waxa uu ahaa abaanduulaha ciidanka qaranka ee xeebta galbeedka Somaliland. waxa kale oo uu soo qabtay xilka taliyaha guutada 17aad ee ciidamada qaranka sanadkii 1997 ilaa 2000. xilli ugu horeysay ee uu taliye Dabagale ka howlgalo taliska guud ee ciidamada qaranka ayaa ahayd intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2003. waqtigaas oo uu ka mid noqday saraakiisha sarsare ee waaxda hoggaanka howlgelinta taliska guud. sanadihii 2005 ilaa 2008 waxa uu ahaa hoggaanka xigeenka taangiyada iyo gaadiidka gaashaamada ciidamada qaranka. intuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka qaranka waxa uu tababar ku soo qaatay kulliyada military oo kala yaalay dalalka Ingiriiska iyo Ethiopia. muddada u dhaxaysay sanadihii 2004 oo dalka Ingiriiska u tegay waxbarasho iyo sanadihii 2008 ilaa 2011 oo dalka Ethiopia waxbarasho ku soo dhameystay. muddada uu ka tirsanaa ciidamada qaranka Somaliland booska ugu sareeya ee uu ka gaaray ayaa ahayd inuu noqday taliyaha howlgelinta ciidamada militariga Somaliland isagoo soo noqday gaashaan la sare. bishii May ee sanadkii 2015 waxa uu isagoo xilkaas haya dalacsiyay oo darajada Sareeye Guuto siiyay madaxweynihii hore Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. bishii June 16 2017 ayaa General Maxamed Aadan Saqadhi Maxamuud Dabagale madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u magacaabay la taliyaha madaxweynaha arrimaha gaashaandhigga, waxaana laga bedelay hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo markaasi ahaa. xilka loo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska waxaa baneeyay Allah u naxariistay Sareeye Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan. kowdii bisha November ayaanu ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Allah u naxariistay General Fadal ayaa ahaa taliyaha ciidankan muddo 7 sanadood oo xidhiidh ah.